qaybo badan oo kamid ah wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta ka dhacay dibadbaxyo ay sameynayeen kumanaan kamid ah dhalinyarada kaxaysa mootooyinka nooca loo yaqaan bajaajta kuwaasi oo ka cabanayay taadiye kala duwan oo ay la kulmaan inta ay ku guda jiraan howl maalmeedkooda magaalada iyadoo dibadbaxani uu ka dhashay kadib markii dil loo geystay mid kamid ah wadayaasha gaadiidka bajaajta iyo rakaab saarnaa mootadaasi gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu ayaa ku dhiiriday in uu hor istaago muwaadiniinta cariisna ee maanta isku soo baxay wuxuuna si kulul u cambaareeyay falkii maanta dhacay isagoo sheegay in marnaba aan la aqbali doonin xadgudub loo geysto muwaadiniinta caasimadda ku dhaqan marka hore waxay kaga mahadcelinaynaa shucuurtiina iyo sida u soo bandhigaysaan sida aad noogu muujinaysaan falkii dhacay inuu yahay fal aan la aqbali karin isla markaana aan dhammaanteen ka wada gubanay labada marxuumna u tacsiyeyno falka ciddii geysatayna aan ka daba tagno taliyihii booliisku waa caddeeyey sarkaalkii meesha mas-uulka ahaana wuu xiray taliyaha wuxuu xiray waxay tahay in oo la dabagalo amarkaas la fuliyo si aan qof shacab annaga nooga dhiman waay waxa la rabo dhalinyaro magaaladiinni waay dalkan dalkiinni waay dalkan wuxuu ku hagaagi karaa annagoo midnimo iyo wadajir uga wada shaqayno sidii aan sharafka iyo karaamada iyo caasimaddan u soo wada ceshan lahayn waxaan idinka rabnaa marka haddana caasimaddan iyo dalkan yaa iska leh dadka farakutiriskooda ku soo dhuumanaya ee taayir gubaayo ee ka dhigaayo magaaladii magaalo oo qarax iyo buuq ka socdo waxaa la rabaa in falka la geystayna wax laga qabto dawladdiina aad la xisaabtantaan annagana diyaaraa idiinnahay laakiin in wixii amniga oo darrada ka qayb qaadanayo dadka idinku soo dhex dhuumanaya taayiro gubaayo oo dhagxaha ku tuuraayo ganacsigii ummadda Soomaaliyeed dhagxaha ku tuuraayo aan meel ugu soo wada jeesanno annaga waxaan rabnaa dalkan dalkiinni waayo dalkiinni haddaad idinka u istaagay yaa u istaagay marka aadaa idinkaga mahadcelinaynaa sida aad u soo istaagteen sida aad u rabtaan inaad u qabataan falkii dhacay in laga daba tago sooma rabno mise wax kalaa rabnaa taasna taliyahana waa idiin ballanqaaday annagana waa idiin ballanqaadaynaa hadda maanta waxay taagan tahay qoyskii marxuumkii naga geeriyooday aan u wada naxno qoyskaas aan u damqanno aan u ducayno aan ayagii muxuu ahaa aan wax u qabanno taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareegaas Bashiir Cabdi Maxamed oo dibadbaxayaasha dhankiisa la kulmay ayaa tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga loo horkeeni doono gacan ku dhiglihii dilka geystay ciidanka booliiska idin taagan wax idinka idin shaqeeya amnigiinay sugaan saxma amniga nolosheenii oo dhan haddii wax dhacan waa laga daba tagaaya ninkii sarkaalka madaxda ka waa xiray kan kale tan waa keenayna ehelkii uu ka dhintana sabr iimaan Allah ka siiyo idinka oo dhan sabr iimaan Allah idinka siiyo saaxiibkeen laakiin wixii xaq iyo wuxuudina meel baan u saarayna waxa inoo soo haray amniga inagoo dhan baa ku nool soortii ma amniga waa amniga ku noolnahay waa amniga hooyada ku nooshahay waa amniga abiin ku nool yahay walaaladiina ku nool yihiin amniga inaga iskale migu raasantiin yaa iskale amniga inaga iskale Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.